kadib markii lagu soo booday jilaaga caanka ah ee Soomaaliyeed Cabdimuriid Dheere Ajakis. waxaa baraha bulshada la isla dhex marayay xanuunka alaha cafiyo walaalkeen marnaha behen Cabdimuriid Dheere Ajakis walow sokor qabo hase yeeshee xilligan waxaa baraha bulshada ka dareemaysaa sida ay shacabkiisa ay u jecel yihiin Cabdimuriid Dheere Ajakis ka oo xilligan lagu soo booday xaalad halisna uu ku jiro. balse waxaan bulshooyinka Soomaaliyeed caawa ah habeen Jimco ah ka codsanaya inay u duceeyaan jilaa Cabdimuriid Dheere Ajakis. maxaa yeelay Cabdimuriid Dheere Ajakis muddo ku dhow 35 sano ayuu dadka madadaalinayay, dadka ka qoslinayay, dadka farxad gelinayay, balse caawa wuxuu u baahan yahay ducada bulshadiisa, wuxuu u baahan yahay ducada muslimiinta weydel. aan u ducayno walaalkina Cabdimuriid Dheere Ajakis oo caawa xaalad halis ku jiro, oo caawa xaalad halis lagu soo booday. asxaabay waxaa idin leeyahay waxaan jeclaysiin in idin uga siiyaan ugu duceyno maadaama ay tahay habeen Jimco ah Cabdimuriid Dheere Ajakis. dabcan Cabdimuriid Dheere Ajakis wuxuu noo soo qabtay waan wada ognahay, wuxuu noo soo qabtay dhammaanteen markhaatiyaan ka nahay, markii markhaatiyaan ka nahay. dabcan caawa ducaayu nooga baahan yahay Cabdimuriid Dheere Ajakis. ducadiinana yacni wax way bay u taraysaa. aan u ducayno Cabdimuriid Dheere Ajakis xaalad halis ayuu caawa ku jiraa, sokor ayuu qabaa, sokorta ayaa ku kacday, xaalad halis ayuu ku jiraa. marka saaxiibayaal aan u ducayno Cabdimuriid Dheere Ajakis.